السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دواده برنامجكني مرتدا كالسان تضباطكنا برنامجكنا مرتدا كالسان waxaan ku soo martiqaadnay Cabdirashiid Daahir Axmed oo ah gudoomiyaha ururka Sahal oo ka howlgala magaalada London ee dalka Britain isla markaasna ah nin si weyn u ololeeya dhismaha maamulka Jubbaland ee dhawaantan looga dhawaaqay magaalada Kismaayo waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha taageerida ee Jubbaland ururkani waxa uu qabto iyo waliba waxyaabo kale oo ku aadan dhanka siyaasadda Soomaaliya marka hore Cabdirashiid ku soo dhawo telefishinka Kalsan TV. Thank you waa maasantiin dhamaan halkan bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan caawa ka salaamayaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool muxuu ahaa wadanka gudihiisa iyo daafihiisaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo bahda TV-ga Kalsan iyagana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hagaag Cabdirashiid waxaad gudoomiye u tahay urur la yiraahdo Sahal oo ka howlgala magaalada London bal intaan u gelin ujeedada ururka loo asaasay iyo waxyaabaha aad qabataan marka ugu horeysa ururkiina waxa lagu bartay taageerida maamulkan dhawaanta looga dhawaaqay Jubbaland oo khilaaf badan sida loo socotay ummadda Soomaaliyeed si weyn uga hadlayaan khilaafna uu ka yimid dawladuna ay si weyn uga soo horjeesatay dhismaheedii marka ugu horeysa maxay tahay sababta aad ku taageertaan ururka maamulkan bismillaahir rahmaanir rahiim saadaq waa maasan tahay horta runtii muddo waxaan shaqaynaynay anagu 5 sano iyo ka badan waan ka horeynay muxuu ahaa maamulkan hadda lagaga dhawaaqay muxuu ahaa ama dhismahan hadda lagaga dhawaaqay muxuu ahaa Jubbaland State campaign-kanagu uu ka horeeyay ururku sidiisaba anagu waxaan u sameynay muxuu ahaa horumarka iyo nabadeynta ummadda Soomaaliyeed iyo dib u heshiisiin iyo diplomatiga saasaan anagu muxuu ahaayaan marka hore shaqadoodu ahayd ama policy-nagu ah haddii ay tahay sidaas oo daacad iyo inaad ummadda Soomaaliyeed hawlgal wanaagsan ugu shaqeysaan ay tahay maxay tahay waxa gaarka ah ee aad Jubbaland ku taageertaan oo mar kasta ugu sameysaan barnaamijyo kala duwan oo aad uga taageereysaan Jubbaland bismillaahir rahmaanir rahiim Jubbaland waxay ka mid tahay sida aad u ogtahay 18 gobol ee Soomaaliya qayb ka mid ah weeye waa ummad Soomaaliyeed annaguna waxaan nahay muxuu ahaa urur Soomaaliyeed ayaanu nahay marka waxa keenaya in aan Jubbaland u ololayno waa qayb ka mid ah waxyaabaha annagu aan rabnay ummadda Soomaaliyeed aan u qabanno kuma istaagayno oo kaliya Jubbaland hadda sida aad ogtihiin way istaagtay waxa qorshahanaga ama hadafkanaga ka mid ah markii Jubbaland arinteeda aan dhinac u dhigno oo hadda aad ogtihiin in muxuu ahaa madaxweynaha iyo dawladdu bay dhisan yihiin inaan u soo gudubno gobolada kale sida Baay iyo Boqol iyo Shabeellada hoose oo aan la socono iyaguna inay maamul goboleed samaysanayaan warar hoose ayaa waxay sheegayaan inaan la haybtihiin deegaanka dadka hadda maamulka ku dhawaaqay isla markaasna aysan ahayn dad u dhameystiran maamulkaasi qabiiladii kala duwanaa ee gobolkaasi degana marka idinku si gaar ah ayaad u taageertay idinku haybahan ku raacaya arrimahaas ma inkaraysaa gudoomiye waxaan dhihi karaa waxba kama jiraan bismillaahir rahmaanir rahiim runtii horta Soomaali abti iyo eedo iyo habaryar baa la soo wada yahay waxa weeye dadku waa dad ehla oo qaraabo ah kaliya haybahan hadii la dhaho ma degno muxuu ahaa Jubbaland oo kaliya ma degno Jubbaland waxa dego Soomaali oo dhan baa degta arintaas in badan bay soo noqotay oo xitaa aniga interview hadda ka hor aan bixiyay baa la igu weydiiyay waxa maragma doonta oo xaqiiqo ah Jubbaland saddexda gobol Shabeellada Jubbada Dhexe Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo oo Jubbaland la isku dhaho waxa dega Soomaali oo dhan baa ku dhan waxa maragma doonta oo xaqiiqo ah in ay ka mid yihiin maamulka hadda jira kii hore ka horeeyay ku meel gaarka ah guurtada dhinac walbaba ma waxaad inkiraysaa hadalkii madaxweynaha ka soo baxay oo sheegaya inaan loo dhamayn isla markaana hadda dawladii wafuud kala duwan oo xataa loo diray loo diiday taasi ay tahay mid qabiil kaliya uu ku kaliyeysatay halkaasna ay qabyaaladii ka muuqato ma waxaas oo dhan baad gudoomiye iska indhagartay ka dhaaf waa maasantay saadaq runtii waxaan dhihi lahaa oohinta orgiga ka weyn madaxweynuhu runtii waxaan filayay inuu madaxweyne u yahay dhammaan muxuu ahaa wadanka Soomaaliyeed laakiin waxa muuqata oo aan aragnaa in caga jugleyn iyo handadaad iyo harassment joogta in lagu hayo shacabka reer Jubbaland ee ka soo jeeda saddexda gobol oo aan dhihi karo Soomaali way ku dhan yihiin taa marka waxaan dhihi karaa dawladdu iyadu inay dib u heshiisiin iyo dawladnimo inay muxuu ahaa ay lead garayso baan ka filaynaa anagu laakiin uma aan filaynin Cabdirashiid aan warka goosgoosanay waxa gaarka ah ee idinka kaga dhex muuqda maxay tahay hadaysan jirin qabyaalad aad ku taageereysaan maamulkaas runtii anagu waxaan dhihi karnaa ma aha qabyaalad ma aha waxaan ognahay sidaad ogtihiinba dawladda Soomaaliyeed maanta inay tahay nidaam federaal in lagu soo sameeyay in constitution ummadda Soomaaliyeed muxuu ahaa u dhaxa oo ay samaysatay ay jirto taasaan anagu waafaqsanahay marka waxaad moodaa dawladdu nidaamkii u yaalay ee ahaa
dib u heshiisiin inay muxuu ahaa ka bilowdo Soomaaliya labada sano ee ugu horeysa ama oo ay u diyaariso one man one vote inay xad muddo ay ka xagaag bodo haddaad ururkiinu yahay dib heshiisiin iyo inaad dadka Soomaaliyeed dhexdhexaad u tihiin maxaad gobolada kale sida aad Jubbaland ugu dhimanayso kale ugu dhiman weydeen wax uga qaban weydeen waxa la yiri oda dhacmaysay oo kala sareeyaan baa loo kala qaadaa waxa qorshaha anaga kamid ah inaan boodboodin laakiin marka hore aan dhamayno barnaamijkan aan isla soo jaan qaadnay oo juhdiga badan aan gelinay oo aan u aragno dhibka maanta Soomaaliya ka jira ee 22 jirsaday meesha kaliya laga bixi karo inay tahay Jubbaland State cabdirashiid sida la socotidba dhawaantan maamulo kala duwan baa looga dhawaaqay barhiila waa aragtay maamul uu isaguna madaxweynuhu sheegtay ninka la yiraahdo Axmed Islaan sidoo kale Axmed Madoobe wuxuu sheegay inuu yahay madaxweynaha shirkiga ka socday Kismaayo lagu doortay marka isku celceliso dhammaan sawirka baxay oo dhan waa hal qabiil ama dad isku hayba siyaasiyiin isku hayba miya arrimahaas oo dhan sacab la saari karaa horta waxay la mid tahay ma sha Allah waad la socotaan Xasan Sheekh Maxamuud doorashada ugu dambeysay Muqdisho lagu galayay finaalka waxa isugu soo haray waad ogeyd hal famil bay ahaayeen horta dhib ma leh haddii doorasho ay isugu soo haraan muxuu ahaa 2 nin ama 3 nin oo isku famil ah waa candidate waxani ma aha qabiil laguma salayn karo dhinaca kale bare ama Sheekh Axmed Madoobe marka la fiiriyo waxa marag ma doonta oo aan indhaha laga qarsan karin arrintan oo 4 sano iyo bar ayay soo socotay shirkan hadda Axmed Madoobe lagu doortay wax iska cad oo marag ma doonta weeye oo ummadda Soomaaliyeed maanta ay ogtahay bare waa nin muwaadina oo dhulkii u dhashay looma diidana laakiin waxaan dhigi karnaa waa arrin ay ka dambayso dawladdan federaalka oo muxuu ahaa laga hogaaminayo Muqdisho in mar labaad lagu celiyo dawladdu way cadeysay mowqifkeeda Cabdirashiid hadaan indhaha la iska tirayn waxay sheegtay inay arrinta ugu weyn ay tahay inay dib u heshiisiin iyo in dadkii deegaankaas deganaa si dhameystiran ay arrinta oo wax uga qabto maamulkooda sameystaan laakiin waxa moodaa in hal garab kaliya ay iyagu wax marorsanayaan waa taataal meesha laga muransan yahay waxaana mararka qaarkood soo baxa eedeemo kala duwan oo dadka beelaha deganaa ay meelaha kala duwan ka hadlayaan saxaafadahan u sheegayaan in aysan raali kahayn waxa ka soo baxay Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo shirkiga ka socday dhammaan waxyaabahaas oo dhan haddii la xeeriyo meel dhex la isugu yimaado maxay ku diidantiin qoliyihiin Jubbaland taageersan cidda wax diidan waa dawladda federaalka weeye si aan u aragno maamulkan maanta dawladda maanta lagaga dhawaaqay Jubbaland 24 saac iyagu waxay la taagan yihiin inay mar walba ka mid yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya laakiin cidda doonaysa in ay wax muxuu ahaa leexiso oo ay Soomaaliya dhibkii iyo rafaadkii laga soo baxay dib ugu celiso waxaan dhigi karnaa waa dawladda muxuu ahaa federaalka Soomaaliya waxaana marag ma doonta oo aad aragtaa oo indhaha iskaga qarin karin intii hadda muxuu ahaa shirku uu ka socday muxuu ahaa magaalada Kismaayo way ka badan tahay 6 jeer way ka badan tahay inta jeer ee la handaday muxuu ahaa shacabka muxuu ahaa reer Jubbaland Cabdirashiid waxaan filayaa maada tegin intii uu shirku ka socday magaalada Kismaayo ama waa lagu dhisay maamulkaasi haddii aad soo qaadato kale dabcan aad baa u xiriirsay aad baan u taageerisay yaad hadda dadka ku daawanayo ku har cadeyn kartaa oo ka qabiiladaas ku jiro meesha fadhiyay runtii Soomaaliya way istaqaanaa waa deegaan weeye waxaan dhihi karaa dawladda ayada waxa kamida qabiilka Daarood waxa kamida muxuu qabiilka muxuu Raxan Weyn waxa kamida muxuu ahaa ama Digli Mirifla baan dhaho waxa kamida muxuu ahaa nimanka la dhaho Shiikhaal waxa kamida nimanka la dhaho muxuu ahaa ii sheeg gaal jecel waxa kamida Biyamaal waxa kamida nimanka muxuu ahaa la dhaho ii sheeg degaa Raas Gambooniya la dhaho awralmala kamida way badan yihiin qabiilooyinka yaani meesha way u dhan yihiin maxay tahay marka haddii ay jirto dhawaaq ma ka imaan lahayd waa kuwa shirar kala duwan qabanaya waa kuwa cambaareynaya shirkaasi taas waan kaaga jawaabaysaan moodayay oo inta warga koomay Soomaalidu ku maamaada ma aha dadkii matelayay dadka meesha degan ma aha waa dad dawladdu ay ka dambayso oo doonaya in qaabka dawladdu ay wax u doonayso muxuu ahaa inay wax ugu fuliyaan ma aha dawladda waxay moodaan in eedeyntu iskaga dhacayso laakiin hadda ururka IGAD aan soo qaadano karo shirka ay ku yeeshay magaalada Addis Ababa waxay ku sheegeen in dawladda looga dambeeyo wax kasta waana dawladdii dhexe ummadda Soomaaliya u dhaxaysay soo ma aha marka taas macnaheedu wali inaad khaladkii ku taagantiin ummadda Soomaaliyeed iska intanaysan waxa meesha ka jira arrinta iyada habeen dhaweynna muxuu ahaa waan shaaciyay waxa la yiri Soomaalidu nina hadal si u yiri nina si u qaaday IGAD way jirtaa in qodobo ay soo saartay laakiin qodobo siyaasadaysan oo labada dhinacba cid walba xaqeeda tilmaamaysa ayay sheegtay laakiin sida muxuu ahaa afayeenka dawladdu uu shaaciyay ma aha oo ah in xamar shir lagu qabto in muxuu ahaa dawladda looga dambeeyo arrinta Jubbaland ma aha constitutionku ma qorayo mana dhahayo ilaa haddana ma hayno qodob ah in dawladdu iyadu muxuu ahaa ay u samayso maamulka reer Jubbaland qodob qoraya anagu ma garanayno laakiin waxa aan muxuu constitutionku uu qoraya qodobka 49aad in laba gobol iyo wixii ka badan
shacabka deegaanku in iyagu ay samaysan karaan taasaa maxaa markaa xusaysa maxaa ku jaban haddii dib u heshiisiin la qabto oo dib loogu noqdo arrintii amaba dib u heshiisiin dadka dhan garbiya dhan laiskugu yeero oo lagu qabto shir muqdisho deetana dowlad wada jirta oo maamul goboleed rasmi oo dadku ku raali ku yihiin laga wada sameeyo taas waxaan dhihi lahaa runtii waxaa xaqiiqa oo maragba doonta ah waa inagoo caawa dhahna saan ognahayba dowladda Soomaaliyeed waxay ka soo gudubtay nidaamkii ahaa kumeel gaarka waa caawa aniga oo dhaha nidaamkii kumeel gaarka dib ha loogu noqdo that means dadkan reer Jubbaland muddo dowladdan hadda rasmiga ah ka hor bay iyagu waxay ka soo tashadeen aayahooda inay samaystaan maamul ay kaga baxaan dhibaatooyinka marka arrintan waa arrin ka horeysay dowladdan hadda jirta marka yacna dowladda waxa u yaala maamulada kale ee hadda u baahan in la garab qabto baa inay kala shaqeyso oo ay garab istaagto baa dowladdu u yaala laakiin nidaamkan nidaam ka horeeyay ayuu ahaa marka waxaan dhihi lahayn kaalinta kaga aadama waxay tahay in ay muxuu ahaa taageeraan maamulkan maanta meesha laga sameeyay wali Cabdirashiid ma waxa taagan tahay maamulkani ma aha qabiil isku hayba waxa weeye dad isku jira oo gobolka wada degan isku hayb ma aha waana kuu sheegay saddexdaa gobol Soomaaliya oo dhan baa ku dhan intii Ilaahay markii horeba ka dajiyay ee deegaanka ahaa way u dhan yihiin maamulka laga sameeyay muxuu Jubbaland hagaag maamuladan hadda lagu kala dhawaaqay Barahira iyo Axmed Madow labadoo sheeganayaan maxay saameyn ku kartaa Jubbaland hadii dabcan arrintu sii socoto aan la taagan yahay in maamulka Axmed Madow uu si rasmi ah u yahay madaxweynaha jira dowladdu waxay isku dayday arrinta iyada in Kismaayo ay xabad ka dhacdo because rabitaankii shacabka reer Jubbaland waxay ku muujiyeen masiirkooda inay u doorteen Sheekh Axmed Maxamed Islaan oo maragma doonta la og yahay barre si aan ogtihiinba way ku jirtaa muxuu ahaa meediyaha laga helaya YouTube-yada hadii la baaro markii magaalada uu yimid wuxuu cadeeyay inuu u yimid gurigiisii iyo ciyaalkiisii kadibna markii dowladda muxuu ahaa Jubbaland lagu dhawaaqay barre isna wuxuu yiraahdaa waxaan madaxweynaha muxuu ahaa Jubbaland halka marka waxa kaaga cad dowladdu nidaam ay doonayso in dib loogu celiyo rafaadkii iyo dilkii iyo kufsigii ummadda Soomaaliyeed ay ka soo gudubtay baad moodaa halka inay ka muuqato dowladda ayada mas'uul ka ah dhammaan gabi ahaan dalka Soomaaliya ammaanka iyo dib u heshiisiintana waxyaabaha ugu muhiimsan ay qaadayso way horena u sheegay madaxweynuhu inuu 6 qodob ku maamulayo dalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta qaybahaas oo dhan iyadoo la qabanayo uuna ka digay hore uga digay madaxweynuhu inay tan imaanayso dhammaan waxyaabaha hore uga digay iyo dowladda barnaamijyada hadii laga leexday inay tan imaanayso meen karaysan hal mid baan ka rabnaa dowladda Soomaaliyeed especially Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha muxuu ahaa dowladda Soomaaliyeed dastuurka ummadda Soomaaliyeed ku heshiisay ma bedeli karo hal shakhsi dastuurka dib ha loogu noqdo dastuurku waxa uu qabo bay diyaar u yihiin shacabka reer Jubbaland iyo maamul goboleedka maanta Jubbaland State muxuu laga sameeyay baa dib u heshiisiintu hadii dhinac kasta loo dhigo siyaasadda dhinac kasta u eega idinku hadda doonaysa laakiin dib u heshiisiintu Soomaa wax muhiim ah in dadka loo sameeyo dib u heshiisiintu waxaad moodaa sidaan oo la socono dowladdan hadda dhisan 4 sano weeye labada sano ee ugu horeysay waxa loogu talagalay reconciliation iyo waxa loogu talagalay ma garanaysaa inay one man one vote inay u diyaariyaan ummadda Soomaaliyeed 8 bilood iyo barkii hadda muxuu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ka ah Soomaaliya waxay ku mashquushay oo shaqadeedii oo dhan ba ay gelisay magaalada Kismaayo halka marka waxaad ka aragtaa waxa loo jeeda ma aha maamulka ma aha yacni cid gooniya loo jeedaa baad moodaa ma dowladdu sidaas ma sooran waxay muujisay inay diyaar u tahay wada shaqaynta iyo dhisidda maamulkaasi ayna sharcigii iyo dib u heshiisiintii iyo dastuurka ay tixgelinayso waxa lagu soo doortay madaxweynaha waa federalism iyadoo sidaa tahay laakiin idinka ayaa dhinac kale u rogay waxa rabtaan inay kaliya marorsataan ujeedadii iyo rabitaankii maamulkii dadkii deegaankaas ku sugnaa dhammaan waxyaabahaas oo dhan ma wax la inkiri karaa wax walba waa cad yihiin wax la dafiri karaana maanta ma jiraan waxaan anagu ognahay xaqiiqo ah cidda wax diidan oo mar walba kursiga inay soo fadhiisato diidan oo ka cararaysa waa dowladda federaalka ah maamulkan meeshan ka jira xitaa xilligii ay ku meel gaarka ahaayeen waxay mar walba iyagu la taagnaayeen soo dhawaada waxa maragma doontaa in badan in dowladda muxuu ahaa wafti ka socda ay yimaadeen Kismaayo oo la soo dhaweeyay waftigaas oo kala duwanaa cidda marka waxaad moodaa mar walba diidan nidaamkan iyada waa dowladda weey waagaag maamulkan hadda Jubbaland dowladdu waxay sheegtay inay wafuud u dirayso wafuud kala duwan hore ugu dirtay waxaad dhawaanahan bad maqlayseen in ay ku xayirnaayeen wasiiro garoonka taas Soomaha marka inaad awoodii la wareegteen oo aad doonaysaanba in aad dowladii aqalgaliseen dhanka ammaanka Jubbaland State of Somalia mar walba waxaan dhahaynaa waa maamul goboleed kamida maamul goboleedyada Soomaaliya oo waafaqsan nidaamka dastuuriga waxaan dhigi karnaa dowladdu systemkii loogu talagalay oo sida Puntland oo kale ay ula dhaqanto ama Somaliland oo kale ay la dhaqanto buu la mid yahay maamulkan maanta meesha lagaga dhawaaqay
marka xaq waxaa loogu leeyahay albaabka inaysan iska soo jabinin albaabka marka hore inay garaacaan maamul iyo nidaam baa meeshii ka jira dawladdu yani spy oo kale qaabkii muxuu ahaa diyaarad aan la ogeyn goor iska soo gashay airport taa way ta dhibaatada keenaysa marka laakiin lama diidana muxuu ahaa maaragtay waftiga dawladda ka socda lama diidana waagaag cabdirashiid mararka qaarkood dadka Soomaaliyeed inta badan hadallada ama meelaha kala duwan ka hadlaysa dhageysta waxaa la yiraahdaa cabdirashiid waxa uu ku hadlaa hadallo markasta dadka Soomaaliyeed kala geynaya oo amaba xanaf leh waxyaabahaas ma la socotaa saadaq laba socdo laakiin haddii hadda aan kaaga jawaabo anu horta nin Soomaaliyeed baan xaqiiqiyan marka dhabta laga hadlo waxa aan ka hadlaana waa runta maantana waxaad moodaa Soomaalidu runta ma jecla marka dee ciddii runta igu diidaysa anigu 18 gobol ee Soomaaliya ma kala xigaan waa dad Soomaaliyeed waliba gobolka Hiiraan baan ku soo koray xaqiiqiyan wuuna iga xigaa gobolada kale marka waxaan dhihi lahaa dee runta haddii la leeyahay joojina waxaan u malaynayaa taas ma cabdirashiid miyaysan qurux badnayn haddii aad ururdhan gudoomiye u tahay aan horena u sheegtay in ajendihiinu yahay dib u heshiisiinta Soomaaliyeed in dalka Soomaaliyeed dib u dhis lagu sameeyo oo dadaal dheeraad laga galo arrimahaas in aad markasta ku dadaashaan dhanka nabadeynta iyo wada hadalida Soomaalida balse aad hal group ama hal qayb ina taageerin waxaa hadda anaga qorshahanaga kamida oo plan B noo ah Jubbaland already hadda way tagtay qorshaha hadda ku noogu xigaa wuxuu yahay cid kasta oo dulman oo 22 sano ee Soomaaliya burbursanay la dulmayay in aan isku dayno dulanka inaan ka qaadno kow hadda waxaan kaga bilaabaynaa gobolka Baay Bakool iyo Shabeellaha Hoose aan doonayno sidoo kale iyaguna inay sameystaan maamul goboleed kadib waxaan u soconnaa Muqdisho oo aan ognahay 16 degmo inay ahayd kadib Jowhar ilaa Hiiraan saasaan u soconaynaa waxa gaarka oo idinka dhex muuqanaya waa maxay marka wadanaha gaarka idinku jira ururkiina wax inaba dana gaar ah oo anaga hadda nooga muuqda horta masab cidna anagu kama doonayno sidaan kuu sheegay anagu dib u heshiisiin horumarin iyo nabadayn weeye ururkana waxa uu ka shaqeeyo taasna waxay mar walba soo koobaysaa ummadda Soomaaliyeed si kala halkan u dhigo soo lama oran karo waa ku borqarsanaysaan waxa rabtaan kaliya arintii waxay kismaayo oo kaliya iyo inaad deegaanka aad ka soo jeedaan inaad marka horeysa aad halkaas la gaadhaan oo aad ka mira dhaleysaan waxa raadinaysaan balse in meel kale u socon oo taa ay idinka ahayd kaliya in dhinac haybta aad wax ku taageertaan waxaan dhihi lahaa kulley wax walba horta in la hordhaco ma fiicna waxaad moodaa hadda way qoyan tahay arrintan hadda Jubbaland muxuu maamulka lagaga dhawaaqay kulley ficilladana ay ka mid noqon doontaa ama waad arki doontaan stepka labaad ee aan qaadi doono insha Allah maxay kula muuqan kartaa marka fikirka ahaan Cabdirashiid haddaad wax sida lagu xalin karo mushkiladahan soo noqdo dadka Soomaaliyeed aad ugu hadlayaan ee hadda Jubbaland ka soo caloosan waxaan dhihi lahaa haddii la buunbuuniyana waa qaabka hadda dawladdu ay u buunbuuninayso haddii sida ay xaqiiqada tahay loo dhigana waxaan dhihi lahaa arrintani wax kale oo ma baahna adduunka wax walba waxaa kala haga dastuur baan inagu hadda ku heshiinay Soomaaliya haddaynu nahay dastuurka ha ku dhaqanto dawladdu maamulku mar walba iyagu waxay cadeynayeen markii hore iyo haddaba inay dawladda u hoggaansanayeen iyagu cidda marka ka boodsan nidaamkii Soomaaliya ay ku heshiisay waa dawladda federaalka ah taa marka waxaan dhihi karnaa waa meel ka dhac dawladdu ay samaysay rabitaankii 825 muxuu ahaa oday ay ku ansixiyeen dastuurka Soomaaliyeed inay isku dayaan shakhsiyaad inay bedelaan hagaag Cabdirashiid adigu dadaal baad u gashay inaad arinta jubbooyinka meel uga soo horto sidaa sheegtay ururkaaguna waxa uu ka qayb weyn barnaamijyo kala duwan baad dhigteen soo dhaweyn baad u dhigteen bilow baad u dhigteen taageerid baad u dhigteen inta baad u dhigteen waa maxay marka shakhsiyan Cabdirashiid ka ahaan waxa danaha gaarka kuugu jiray ma xil raadis ba ahayd ma siyaasadana ka dhex muuqataa rabtay waa maxay waxa aad raadinaysay waa maasantahay Saadaq runtii waxa weeye horta Soomaalidu waxyaabo badan bay ka shaqeysaa sida dhabta ah anigu mas'uuliyad maanta igu filan Ilaahay waa siiyay ciyaal iyo reer buu Ilaahay siiyay ceeshkayga muxuu ahaa igu filan maanta waan haystaa inta wax ka badan maanta anigu aan raadinaya ma jiraan wax dana gaar ah ma ka leedahay Jubbaland inaad xil ka qabato ama aad ku soo dhaxbaxdo siyaasadda waxaan ku sheegay arinta Jubbaland dhinac bay hadda nooga dhacday mar walba anigu waxaan isku dayayaa anoon cidna xil ka doonaynin inaan ururkanagu iskood iyagu muxuu ahaa sidaan kuu sheegay goboladan kale ee dhiman ee dulman inaan muxuu ahaa aan juhdi gelino ma garanaysa si ay uga baxaan dulanka ururka magaciisa markii laga hadlayo sahla leeyahay dadku waxay u xaqliyaan inay tahay dad qabiil ka soo jeedo oo isu tagay arrimahaas balka war arintaas hadda ka hor baa su'aasha la weydiiyay de xawaalada badan baa jira kulli saan hadda ka hor u shaaciyay TV badan baa jira qofku wuxuu doon ula bixi karaa emailkaaga hadda aad wax doontaad ku qori kartaa sahal waa ilaahu noo sahal weeye arrintan aan wadno laakiin ma qabiil isu tagay magacyo laga soo qaatay ma aha Soomaali oo dhan baa ku yaa ku dhan maartay waa hagaag Cabdirashiid Daahir Axmed
oo gudoomiyaha sahal aadan kaa mahadin waqtigan nasiisay barnaamijkeena intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkan labada inta aan ku kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa sidaas nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Thank you so much.